بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال كوسو دوادا ورك عالم كي تلفزيون كقرنك الصومالية وإذن كمان يحرون تدحي تي في كلية مقالة مقدشو هدي الله ودلي وقال داوديال قضبضا وركات كو داود دونتان وحاكمدا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن الشيخ محمود oo ka hadlay mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya isla markaasina sheegay in waqtigii loogu talagalay Soomaaliya ay ka dhici doonto doorasho xor ah markii la gaaro sanadda 2016 mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo kulan ay su'aalo ku weydiinayeen wasiirka cadaaladda mudane Ahmed Jaamac Al-Kajir ku yeeshay magaalada Muqdisho wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo deeqda waa gaarsiisay isbitaalka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya oo agab isugu jira sariiro iyo joodariyaal ku wareejisay xarun caruurta agoonta ah lagu xanaaneeyo oo ku taala degmada Hodan ee gobolkani Banaadir akhbaraadka caalamka daawadayaal aan idin haynana waxa kamid ah dadka ku dhaqan magaalada lagu magacaabo Suus oo ku taala wadanka Tunisia oo isugu soo baxay dibadbax ballaaran oo ay ku careysan yihiin ama ay ku cambaareenayaan weerarkii dadka badan lagu dilay jimcihii ka dhacay wadankaasi